qaybo ka mid ah odayaasha waxgaradka nabadoonada dhalinyarada iyo qoyska reer Beeldaajo ayaa ka hor yimi xaflad dhawaan loo qabtay Beeldaajo cusub ay yeelanayso beesha Muuse Saleebaan isla markaana qaybo ka mid ah beeshu ay isku raacday waa kuwan waxgaradkii nabadoonadii cuqaashi dhalinyaradii iyo qaybo ka mid ah qoyska reer Beeldaajo oo ka hadlay arrin waxaana ay baaq u direen odayaasha dhaqanka culimada waxgaradka Soomaaliyeed waxayna codsadeen in xilkan uu meel ahaa laguna soo celiyo meeshiisii maan raxmi sideetankii baan ku jiraa boqorka Muuse Saleebaan mid maanta dhashay ma waa mid soo jireena Beeldaajo soo jireen weey aabihiis iyo awowgiis iyo kiixii 80 jir baan ahayo waxaan maqlo iyo waxaan arko walahay la sheegayo hoteelka ka dhacay anigu lama socdo Beeldaajo waa kii loo ahaan jiray iyo dushaydiis isagaas baa Beeldaajo noo ah Maxamed Beeldaajo weeye waa ku ayidinay halkaan waxa weeyaan goobta ay isma istaagaan ee ah meesha geedka lagu doorto ama baaqa ay ka soo jeediyaan ama danta dadweynaha iyo danta guurtay ka fuliyaan oo ah geedka harkiisa sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa baaq ku saabsan ama macnaha ujeedadiisu ay tahay koox danaystayaal oo hotel Gufra ku qabtay waxaan u qalmin isimada iyo Beeldaajaha oo gaf ku ah ku soo jeediyay halkaas iyaga oo ku soo bandhigaya macnaha nin aan u qalmin isimada una dhalan ahayna ayaan baaqaya ku wajahaynaa annagoo ah oo matalayna oo ku hadlayna codka bulshada ee Muuse Saleebaan kuna hadlayna codka guud ee bulshada reer Puntland Beeldaajo ana meel baan ku noqon oo ku lahayn waxaan ku dooran jiray geed harkii oo kaga caana shubi jiray mid hotelna waa kan hadda noogu horeeya haddii uu Beeldaajo caama yahay meeshu ka iman jiray laga keeni lahaa waxa la eegi lahaa dadka waa bulshada loo yeeri lahaa geed baa la geyn lahaa harle waa lagu caana shubi lahaa halkaas la isugu man laakiin wax tan maanta waxay daba taaltii ka dhacday waxayna ku wajahan tahay isimkii lama jira habaashay oo beesha Muuse Saleebaan buubiyaankan ku wajahan wuxuu ugu wajahan yahay ciddii garanaysa beesha Muuse Saleebaan isinkeeda iyo ciddii aan garanaynba isimkii Muuse Saleebaan wuxuu ahaa kii hadda ka horeeyay maxruumkii dhintay Beeldaajo Axmed Maxamed Xirsi waxaana xaq u leh oo mutahayo u leh oo loogu caana shubay hadda ka hor Maxamed Beeldaajo Maxamed Beeldaajo Axmed Beeldaajo Xirsi Beeldaajo Maxamed Beeldaajo Xirsi Faarax oo ah isimkii soo jiraaga ahaa oo Beeldaajihii ugu horeeyay isimada Puntland sida la wada og yahay gobolka bari isimadii ugu horeeyay ugu faca weynaa buu ka soo jeedaa oo maraya ilaa iyo hadeer yana 8 fac maraya in maantay isim been amoor noo yahay Beeldaajo noo yahay waa arrin aan jirin aan aqbalayn una dulqaadan doonin baan ku beeninaynaa Beeldaajo horey buu u jiray soo jireen buu ahaa 7 Beeldaajo ku soo abtirsaday waad maqlayseen Beeldaajo Maxamed Beeldaajo Axmed Beeldaajo Maxamed Beeldaajo Xirsi Faarax baa la yiraahdaa 7 Beeldaajo bay ku soo abtirsadeen 7daas soo jireen buu ahaa waxa la yiraahdaa waxa la inqilaab baa la yiraahdaa inqilaab magaca soo jireenka oo aanu nahay oo la beeshay baanu ka soo horjeeday haddaan marka isimada boqorrada haddii ay ku roon yahay ilaa dawladda Puntland haddaan la ilaalin magacayada waxa weeye iyagay u daranta annagu wixii ka soo horjeedana wixii soo jireena waa ka xun awogay Faarax waa awogay afraad taariikhdu markay ahayd 1808 baa la doortay wuxuu ka mid ahaa 17 saldano oo daarood oo ansixiyay xeer daaroodka docmo
ku ansixiyey 1840 wuxuu dhintay 1971 waxaa bedelay aabbahay oo Axmed Maxamed Sheekh dhaqanka iyo xeerkii iyo dhaqanku waxay jaartarkaasoo ah inaan laga qaadin meesha ay leedahay hoggaan dhaqan baana soo maamulayay ummadda Soomaaliyeed iyadoo isticmaalna haysan xorriyadna haysan daakhilina haysan hoggaan dhaqan baa soo maamulayay wuxuuna ku maamulayay halku ma kordhijinayna dadku markuu kordho si kastaba ha ahaatee waxaa dhowaan lasoo bandhigay xaflad loo qabtay beeldaajaha cusub ee yeelanayso beeshu islamarkaana bedelaya beeldaajihii hore ee dhintay 2 sano iyo bar waqti laga joogay allaha u naxariistee beeldaaji Axmed beeldaaji Maxamed beeldaaji Faarax beeldaaji Xirsi Maxamuud Yuusuf Caamir Somali News TV Qardho.